السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليق channelkay kusoo dhawaada waanii salaamay dhammaan adduunka meel walba ka joogtiin. Maanta waxaa rabaa inaan ila share gareeyo sida aan u suubiyey classic double cheeseburger oo guacamole ku jiro. Masha Allah, caadi ma aha. Waa cuntooyinka ilmaha aad uga helaan. Adinkan waa ka heli doontiin insha Allah. Waxaa ku jiro rootigii, cheeseka, guacamole ama avocado, ansalato, mayonnaise, ketchup iyo basala saaran, bisbaas, waxaas oo dhan insha Allah. Waa qado ama casho aad u fudud insha Allah. Intaan wax lee ka suubiyey. Meeshaan waxaa ii saaran hilib shiishiidka, guacamole oo diyaar ah waaye, avocado oo la soo shiiday, yani oo wixiis dhan lagu daray waaye, masha Allah diyaar ah. Wax walba lagu cuni karaa, waa kaas. Single sizes waaye for dipping. Waxaa ii saaran cusbo iyo pepper. Waxaa inta ii saaran cheese. Cheeseka laba nooc waaye, sargento waa kan. Waxaa kale ii saaran inta bisbaas iyo yaanyo iyo basasha oo gaduudka ah. Pickleka noocana isticmaaloyaa ama qajaar oo fresh ah haduu ku yaalo baa isticmaal kartaa. Ansalato, rootigan diyaarka ah waaye, waa kaas. Hamburger buns, ketchup iyo mayonnaise, waa kaas. Laba noocana isticmaala insha Allah. Iyo waxaa kale ii saaran fries, chipsiga diyaarka ah. Saliid lee ku dubaa insha Allah kan. Waa diyaar. Marka waa kaas insha Allah. Intaan waaye. Ama kan freshka xataa waa u dubi kartaa. Waa kaas, intaas waaye. Spices ma ii saarno. Kaas inaa spice ku daro marabi. Waa kana qudaartii waa soo dhaqay waana jarjaray. Marka saana u diyaariyaa markii ilmaha burger suubinayo. Qof walbo asaa ismaamula. Marka insha Allah waa kaas ansalaatadii, tomatoeska, basasha, waxaas dhan bisbaaska waa jarjaray. Diyaara ka soo dhigay. Insha Allah wixii kala suubinaa hilibkan u soo duwaa ka bacdi ayaga iskor saaranayin waxay rabaan dhan saaranayin qudaarta. Waa kana hilibka waa soo kuuskuusay. Weli qaar kale ii dhiman insha Allah. Marka intaana had soo kuusay cusbo iyo wax dhan ma ku jiro insha Allah. So sidiisa ah waaye. Marka birta nooc grillka ma ku fiicno. Marka fresh ka suubinaysid pan-yaalkan camal la rabaa oo liishaha ah oo grill mark ku yaalin. oo riigada grillka ah oo ku yaalina ka wadaa. Kaas xir saliid ku shubay. Waa balaariyay hilibkii arkayseen. Markaas cusbo yar ku shubayaa iyo filfil. Bas labadaas bas ka isticmaalay spices. Because inaa wax kale ku daro marabi oo wax ay noqdo kabaab camal ama caraf oo different sida u yeeshto dhanba marabi. Insha Allah sida oo kuwa classic ah maqaayalka lagu cuno camal oo noqonaa markaas. Marka hilibka suubsanaysa iyo chicken isku hal ma aha. Hilibka flavor saas u badan ma rabo. Because asaaba naturally iska masha Allah. Laakiin chicken markuu yahay flavor badan la rabaa inuu lahaado oo macaan ahaado yani. Marka cunaysid beel oo noqonaa hadii chickenka oo yahay. Laakiin hilib markuu yahay just less spice ka dhig kartaa. Wax dhan aad ku darino iska macaana. Laakiin cusbo iyo filfil qasab waaye noocan inaad ku dartid. Woona gaduudina wax yar extra boost noo siinaa oo macaan ah yani. Waa kaas. Adi 2 minutes camal markuu saan u saarnaado waa gedina. Waa kaas saas u soo gaduudinaa. Cuntadan waa American food marka normally saani u wada suubiyaan meel kasto. Spices waxaas dhanba lagu daro. Laakiin wax yar oo saaran yahay markaa gediye wax yar waa riixay because waxaa fiirnooy hadoo well done yahay. Qaadada markaa ku riixda ogaa kartaa hadoo dhiig camal leeyahay wili well done ma aha. Some people saani ku jecel yihiin dhiigaas yar ay jecel yihiin oo moist dhaxda oo ahaado pink ee ku wacan. Marka laakiin hadoo steak yahay medium rare iyo well done marka meel aadidoo kale waxa lagu weydiinaa waxa ma rabtaa well done mas rare mas medium rare. Marka waxa laga wadaa yani gudaha si fiican uu karsana camal korle laga soo dubay. Marka always anaga well done aan dhahnaa soo xeerin yaa cun karo. Marka soo insha Allah kan hadda well done ka dhigaa. Some people well done ma jeclo like wuxuu noqonaa engeg camal gudaha. So like ani wax muu arki masha Allah.
haddii oo laakiin ogaadahe oo chicken yahay, chicken markii la suubinayo always well done inuu ahaada la rabaa, because chickenka calool xanuuna laga qaadaa haddii oo si fiican u karsanen, laakiin hilibka caadi waa insha allah. waa kaas asxaabta, cheeseka saaray, diyaar waa hilibkii well done oo noqday. marka cheesekiisa kusii dhilaalinoyaa, intoo cheeseka wax yar kasii dhilaalayo guacamole sii marinaa hadda rootiga midka hoose. ja flavor oo leeyahay, spices ku jiro maasha allah, kabsar caleen, tuun, waxaasoo dhan ku jiro kan. so marka waa diyaarsan yahay, haddaa rabin waa ka dhaafi kartaa insha allah. markaas hilibkiyaa saaray iyo cheeskii korka saarnay. waa kaas oo ujeedin sidoo iskugu dhilaalooyo. haddaa qudaar jecleen saanaa lagu cun karaa, waxaas kale dhan waa optional. marka next waxaa saarooyaa ansalato, basal, yaanyo, iyo waxaa saaraa kale basbaaska oo jarjarnay. haddaa spices jecleen waa ka dayi kartaa, waa ma ilmahaada jecleen spice. iyo pickle saarooyaa, waa khajaar oo lasoo diyaariyey maasha allah. rooti kale oo ku daboolayna waxaan saaraa ami amarina waxyar mayonnaise iyo ketchup, labadan combination maasha allah. markaas saana kusoo baxay maasha allah, caadi ma aha. waxa waaye ilmaha wadankan oo ku dhashteen hadiiba ay burger cunin ama pizza iyo tacos iyo waxaas oo dhan cunto inay cuneen ba mu isku maleynayiin. yacni si kasta bariis ugu suubi, malaay usuubi, pasta usuubi, cunto traditional kaale arag, biryani, wax walba usuubi, still waxaanay ka jecel yihiin ilmaha badanaan. I'm sure waa isla qabnaa intaas reer America. ma ogi haddii reer Europe yihiin sidaas, waxaanay ka jecel yihiin cuntooyinkaas dhan. marka I hope inaa oo ka faa'iideen sida loogu suubinayo guriga soo fresh insha allah.